dhalinyaradi qarankaay dhuuxii dalkaygiyo dumucdaya xoogii aan ku dhaaranaynay dhalinyaradi qarankaay dhuuxii dalkeeniyo dumucdaya xoogii aan ku dhaaranaynay kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin inta dhimir fayuulay dhagaysta dimagaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dhimir fayuulay dhagaysta dimagaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa maxkamadda sare ee dowladda Puntland maanta oo maalin Isniin ah taariikhduna tahay 19 bisha 8 2019 maalin Isniin ah taariikhda ku beegan 19 bisha 8 2019 maxkamadda sare ee dowladda Puntland waxay u fariisanaysaa fadhiga labaad dacwad ciqaabeedka cabashada ka soo wada qaateen tacafaansanayaasha kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Wasame ina Faadimo Cali 24 jir ah ku dhashay Hargeysa qareen u yihiin qareen Mustafa Maxamed Jaamac qareen Xabiib Cabdullaahi Ciise iyo qareen Axmed Salaad Maxamed Cabdishakuur Maxamed Dige ina Khadiijo Maxamed 46 jir ah ku dhashay Muqdisho qareenna u yahay Cabdirasaaq Maxamed Faarax kana soo qaatay xukunka tirsigiisu yahay Maara Isbaaro Gaana Isbaaro 115 2019 kuna taariikhaysan 3 bisha 6 2019 kana soo baxay maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ayna dhinac ka tahay marxuumad Caaisha Ilyas Aadan iyo xafiiska xeelaliyaha guud ee dowladda Puntland kuwaas oo ku wadaysan qodobada kala ah 332 oo qodobkaas oo macnihiisu yahay khatar gelin ammaanka guud ee dalka 398 oo tilmaamaya kufsi 401 oo ka hadlaya afduub 434 qodobkaas oo qodobka ugu culus oo ah dil oo qodobada ku eedeysan yihiin qodobka 440 isaguna wuxuu tilmaamayaa xagga xeerka dhaawac marxuumadda inta nooleed dhaawac loo geystay qodobka 468 tahdiid oo aayadda u soo jeedisay xeeraalinta dhammaan qodobada aan soo sheegay waxay ku qoran yihiin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale waxay ku eedeysan yihiin nimanka magacyadoodan hore soo sheegay oo racfaanka ay u soo qaadeen qareemadii ayaan magacyadooda soo xusnay qodobka 4 iyo qodobka 7
ee xeerka kufsiga dowladda Puntland. maxkamaddu way furan tahay. dacwadana waxaa bilaabaya cid soo qaadatay cabashada. maxkamadda sare dil jooga waa cabasho. assalaamu calaykum waraxmatullaah. digwa barbaarsho waa dhalaan gardaasho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee digwa barbaarsho waa dhalaan gardaasho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee waana dhidibka kaabo rabka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhaxlaayo guushe waana dhidibka kaabo rabka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhaxlaayo guushe dimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra بسم الله الرحمن الرحيم. maxkamaddu waxay mudaysay dacwadatan 22 bisha oo ku beegan maalin khamiis ah. maxkamaddu way xiran tahay. sida la socotaan mudanayaal maanta waxaa la geystay jalsadii labaad ee kiiskii kufsiga ahaa ee ku eedeysnaayeen 3 eedeysane ee aan laba ka mid ah qareennada ahayn. sidaas darteed kiiskii dib baa loo dhigay maanta. xukun iyo go'aan lagama soo saarin maxkamadda sare sababtoo ah kiiskii waa ballaadhay farciyo yeeshay waasna wajh hor loo soo baxay. sidaas darteed maxkamadda saa la socotaan maxkamaddu waa 3 maxkamadda darajada koowaad maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda sare. maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda rafcaanku waxa weeye oo mawduuci oo qofka markhaatiyaashii meelihii wax ka dhaceen baa la tagaa haddii uu yahay waa la soo markhaati waxaas laakiin tan waa qaanuuni oo waxay fiirisaa qaabka maxkamadii hore waxu soo mareen. sida ogtihiin annaga laba baan u hayn laba nin baan laba eedeysnaan oo qaranno ahayn oo walaalaah eedeysnaha koowaad Cabdifitaax Cabdiraxmaan iyo Cabdisalaan. labada eedeysna mid ka mid ah ayaa qirtay midna kuma jirin oo kiiska awalba ma gelin iska kaliya waxaa loo soo qabtay inay walaal ahaayeen isku dhiyan ahaayeen iyo isguri deganaayeen. kiiskana si la sheegay meesha ka dhacday gurigiiba kama dhicin awal lagu tuhunsanaa ee guri kale leeyahay waa ka dhacay dad kalena ku jiraan leeyaan walka ka magacaabo maayo waxba ma gelin dawladda u taalaas. kiiska maxkamadda waxa horna maxkamadda sida sare waa qaanuuni saan idin sheegay qaabka wax loo soo maray bay fiirisaa buumaysaa iyadoo markhaatiyaashii si wax u dhaceen iyo wixii ma baadho dib u baadho waxaan malaynayaa dadweyne badan ka aragtay maxkamadda darajada koowaad rajada qabnaa waxa weeye kiiska la jabiyo ninka muwakkilka iyaga sanac saddexaada oo waxba sameeyay dambi gelin qiran ku cadeyn markhaati aan loo hayn in loo socoliyo xuquuqda in loo socoliyo sharaftiisa iyo sumcadiisa iyo xorriyadiisa isla markaana waxaan ka rajaynayaa maxkamadda inay u xukunto magdhow maadaama sharaftiisa la dilay sumcadiisa la dilay karaamadiisa la dilay intaa iska xirnaa oo si wax dambiina gelin kaliya waxa lagu eedeeyay waxay walaal yihiin eedeysarihii qirtay dambiga
inuu weliba soo kufsi geystay aan dilka aan geeyay ilaa iyo bilow maxkamadihii kala duwanaa aad soo marteen waxaad idinka ku doodaysaan ka abukaatayaal ahaan inay ragga aad qareemada u tiinaysan hawshaan gelin waxayna ka caddeeyeen meesha horteeda qaybtood inay gashay qaybta kalena la gashay oo weliba dili ka geysteen idinka ma la macno tahay inay xataa idinka naftirkiina waxba idin caddaynaa madax dhulka la dhacayseen may anaga nooma anaga waxay noo sheegay way qofkan anu qor kuma hayno mana khasabno waa dhaarna kaliya dhalinyaro noo aftah uu sheegay markii hore annagu kiiska dad ogay qofkan uu galaska taraan dhahnaa dambiga laga gooyo wixii doon lagu dhacay laakiin suumaana tala gelin oo maana oran ilo waa gashay waan ku qarinaynaa حاشا الله نقول نسرته أنا حقي عشان له أنا قربني إحنا وكسر الحمد لله رب العالمين هدي ما أنت الحمد لله رب العالمين عاشا ودمتي ولا شيء نهيد حق هذين له والحمد لله يعني عبد السلام حريد سلسة عليه حق السؤال أنا بعد اللي قلت لي الحمد لله رب العالمين هذا عبد السلام هذا عبد السلام بكذا أنا كيك اللي ساقط تبي كيف كان